inta laga xasuusto taariikhda waxaa wasaaraddan dib boorka looga jafay 2009 xilligaasi oo wasiirkii warfaafinta dawladdii kumeel gaarka ahayd uu ahaa Daahir Maxamuud Geelle mid kasta oo inaga mid waxa uu jawaab u yahay halka ay jaan iyo cirib dhigeen xirfadlayaashii hibada marla aragga ah lahaa rugcadayaashii haystay dhagaha iyo indhaha dadweynaha Soomaaliyeed maanta waa mowto ama dunida kale ay ciirsi bideen halka kuwa kale ay wili dhex joogaan wasaaradda iyaga oo la nool duruufo caafimaad oo isugu jiro xiska iyo adimaha tii oo u dheertahay inay tabaalaysan yihiin maajilba culustii warbaahinta ayaan ogoleen in qarankooda ay u adeegaan ma 2009 ayaa ka amniga dhaqaale fiican 2024 matay xumo iyo agab la'aan ayaa jirto mise balaayo kale oo aan la bidhaami karin ayaa ku dabra wasaaradda warfaafinta weydiimahan kow ma joogaan runtii wasaaradda waxa ay noqotay doqosh uu ka macaasho hal nin Cabdiraxmaan Al-Cadaala wariyii ka dhex sameeyay dhaqaalaha u gaarka saaxiibadiisii shaqada iyo jilkii ka dambeeyay hadal yaqaan dhihi og marka la wada joogo xariif ku xeel dheer marka uu rabo inuu ka dhex qadeeyo qof darajo iyo dollar dheer mana xaq ku taagsaday inta uu ka tabarroon yahay iga filo xog dhameystiran oo jawaab u ah dhammaan weydiimaha aan xusay iyo kuwa ka dhex guuxayo